السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى خالقة وأنا سلامي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa idin wadaa bataatiganeeto waxaa waaye sidii keeni ma ahan xoogaa kalarkiisa u egyahay dhexdiisana u egyahay. marka walaalahayga qaaliga waxaa rabaa bataatigaana faa'iidada uu leeyahay inaan idinkaga hadlo. bataatiga wuxuu u fiican yahay nafaqooyin badanaa ku jiro. teeda kale wuxuu u fiican yahay dadka sokorta qabo ama macaanka taa u taqaanid haddaa u samaysid noocyo badan oo loo sameeyaa jirto, laakiin maanta sidii caadigeeda oo cuni jirnay sidii basbaaskii aan u sameynaynaa, laakiin waxyaabo badan oo laga sameeyaa jira bataatiga. maanta qaybta ugu horeysa oo caan ah annaga dhan u samaysana oo u sameynaa insha allah. qofka sokorta qabo markuu cuno dhiiggiisa ma kaco, dhiiggiisa sidii loogu talagalo u ahaanayo, ma fahanteen? marka waxaa rabaa inaan sameeyo inaan biyo ku karinaya. biyaha markaa ku kariyo basbaasaa ku cuni kartaa, sidiisa way jari kartaa, caanaa ku cabi kartaa. waa qofka oo sokorta qabo. dadkeena caadi waa loo cunaa oo macnaha waa cunto dabiici oo qof walba uu cuno, laakiinse haddii aan ka hadalno xagga caafimaadka wuxuu caafimaad u yahay uu caafimaad u leeyahay dadka maxaa la dhahay sokorta qabo ama macaanka hadba sida u taqaanid. marka waxaa sameynaynaa biyaha ku karinaynaa. biyaha markaan ku karino aan tusaaya waan jeexaa, laakiin baarta kalka xigo video dambaa kasoo sameyn doonaa insha allah. waxaa kasoo sameynayaa anigoo rooti ka sameynayo kaleete sidii looga faa'iideysto, anigoo waxyaabo badan ka sameynaya insha allah. baastana waa laga sameeyaa, rootina waa laga sameeyaa, laakiin hadda xoogaa basbaasaa ku cuni doonaa insha allah. marka waxaa ku sameynayaa biyo ayaan kusoo karinaya insha allah. markaa biyaha ku kariyo waxaa isku soo noqonaynaa insha allah. hayawaakana asxaabteeda qaaliga saana kasoo dhigay bataatigii maasha allah saas uu qurux badan yahay. horta xagga macnaha maasha allah ka waaye oo xagga macaanta waa iskaga egyihiin, laakiin xagga oo waxay iska kalarka iskama lahan bataatigeeni waa tuu cad ahay. kan waxaa waaye oranji waaye dhexdiisa, laakiin banaanka oranji kama ahayn. maasha allah walaalahayga qaaliga subscribe-ka iga ilaawina, like dhaha, tamisaab sameeya saaxiibyaalo. waxaan rabaa inaad channelka kor u qaadiin, haddaad daawatiin aan ka heshiin. waxaan rabaa inaad subscribe gareysiin, share gareysiin, asxaabtaada u share gareysiin. waxaan rabaa inaad macnaha like-ta iga ilaawina walaalahayga qaaliga. intaas macnaha idin xasuusinayaa. markastana waxaa jeclahay waxa aan ka heli inaan idin soo dhigo, idinkana inaa igu taageeraysiin aan jeclahay, maadaama aan ballanteena aheeda wixii ii shaqeeya inaan soo dhigo insha allah. walaalahayga qaaliga inta waxaa noogu jiro shidni waaye, basbaas shidni waaye, laakiin waxaa aragtidaa ku cuni kartaa. daarad dalacbilaashaa ku cuni kartaa. basbaas cagaardaa jeceshaa waa shiidane oo ku cune, laakiin basbaas shidni oo macnaha basbaas ku badnaynna waxaa waaye oo raqiga u badan yahay iyo maxaa la dhihi jira iyo yaayada. marka kuleel saacida ma lahan. kuleelka saacid haddaan waa ka yareysan kartaa, laakiin qofka oo kuleel saacid rabana wuu basa karaa. inkastoo basbaas cagaarka dadka inay ku cunaa jecelyihiin, aniga saanaa ka hele. idinkana waxaad iska dhigi kartiin saana ka dhigi kartiin haddaa rabtiin. marka aad iyo aad wuxuu caawiyaa dadka macaanka qabo naga faa'iideystaano. u share gareeyo qofta aad macaan qabo taqaaniin si uga faa'iideysto oo macnaha wax walba iska ilaalinayo qofka. laakiin bataatiga wuuna macaan yahay, qofka caafimaadkiisana waxba uma dhimaayo. aad ugu fiican yahay, 100% uu fiican yahay. waxyaabo badan oo fiicanaa jiraan oo bahashan ka mid tahay maxaa la dhihi jira baamiyahoo kaleeto wuu u fiican yahay. hadduu sideeda inta biyo ku qasto uuna cabi karin oo kaleeto wuxuu ku sameynaa dalac bilaashka ku sameysanaya baamiyaha. canjeeradoo kaleeto waxaa maxaa la dhahay rootiga waxaasoo ku cunaya, caafimaadkiisana wuu fiican yahay. walaalahayga qaaliga oo qaarka u saaxiibka ah
subscribe-ka laga ilaabin, like-ta, share-ta, comment qurux badan, soo qurux badantiin qurux badan ka bixiya. asxaabteeda aad u jecelahay channelka idinkaa ugu soo dhaweysan maan haddii la daawo lahayn waan ka caajisi lahaay, laakiin beryahan xoogaa maasha allah waan dadaalayaa. inkastoo aniga aan weeg ama 2 week hal mar aan soo dhigi jiray, hadda xoogaa beryahan inaan dadaalaya ila eg tahay. marka waxaan idinka arkay walaalay qaaliga waan idin soo duceynayaa, idinkana ii soo duceeya in ilaahay noo gargaaro oo si wada dhinac naga mariyo, walwalkana ilaahay muslimiinta ka dulqaado. intaasaan waxaan dhahay rabaa inaan idinla wadaago. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaama.